iskaashatada kalluumaysatada magaalada Berbera ee Badmaal oo maanta isugu yimi xafiiska ay ku leeyihiin Berbera ayaa sidoo kale waxa kala soo qayb galay kulankaasi badiba kalluumaysatada magaalada Berbera waxaana halkaasi kaga hadleen waxyaabihii u qabsoomay muddadii ay xilkaasi hayeen mas'uuliyiinta iskaashatadaasi Badmaal iyagoo sheegay inay u gurmadeen laashash qarqoomay oo qaarkood lagu geeriyooday iyo kuwa kale oo dalka Yemen iyaguna ka caariyay sidoo kale mas'uuliyiinta iskaashatada Badmaal waxa ay ka hadleen shirweyne caalami ah oo ay kaga qayb galeen magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland kaasi oo lagaga hadlayay sidii loo horumarin lahaa kalluumaysatada waxaana halkaasi ugu horeyn ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka iskaashatadaasi Jaamac Madoobe iyo waliba xogayaha iskaashatadaasi Badmaal iyagoo si qoto dheer uga hadlay waxyaabihii hore ugu qabsoomay iyo waxyaabaha uu qorsheysan ay damacsan yihiin sanadaha soo socda inay qabtaan waxa isugu yimi iskaashatada kalluumaysiga ee Badmaal taasoo shaqadeedu ay tahay badda iyo wixii la xiriira soo saarka kalluunka gurmadka qaybta xafiiska nidaamkaas oo dhan uu dhan markaan inta dhaafo iskaashatada Badmaal waxa ay u mahad celinaysaa marka hore dhammaan madaxda gobolka wasaaradda iyo inta la xidhiidha ciidanka marinada intaaba waan u mahad celinaynaa mahadbadeed waxaanu halkan isugu nimi hawlaana la soo kulmay hawlaha aanu soo qabanay waxa ahayn hawlo aad u waaweyn runtii waxa weeyaan dad baa naga dhintay gaadiid baa naga lumay gurmadadoodii iyo hawshoodii ayaanu waxaanu ku jirnay muddo bil iyo bara gaadiidkii qaar Yemen baanu ka helay qaarna saxiimadihii iyo sabaynaya baa la helay meedadkii qaar baa la helay alaankan wali meedadkii qaar baa naga maqan intaas waa intaa marka waxa weeyaan iskaashatadu wixii ay qabatay inay soo bandhigto oo shicib iyo dawladba u soo bandhigto ayaa runtii muhiim ah waxa weeyaan madaxda dawladda haday tahay wasaaradda oo wasiirku kow ka yahay iyo madaxda gobolkaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa siday gurmadka noola galeen siday hawsha uga qayb qaateen siday wax noola qabteen siday u damqaysay macnaha waxa weeyaan arrinka kalluunka iyo baddu ay aad iyo aad ugu damqayeen taas iyadoo macnaha waxa weeyaan wasaaraddu ay arrimo ka soo saartay amaro in qalabkii badda la qaato in la is ogaado in gaadiidka macnaha waxa weeye sida imika wax laga bedelo la isku xidho nidaamyo noocaas oo fara badan baa runtii haddaanu anagu nahay xafiiska Badmaal aanu ka soo rognay iyo dawladduba nala aanu isla qaadanay waxaanu ka qayb galnay shirkii qaran ee wasaaradda kalluunka iyo xeebaha halkaas oo runtii wax badan lagu soo bandhigay iyadoo halkaas macnaha waxa weeyaan wasiirku aad iyo aad uga hadlay arrinta kalluunka jecel yahayna inuu hormariyo mar walbana ku fekero arrinta kalluumaysiga waayo dhaqaalaha Somaliland wuxuu ku xidhnaan jiray xoolihii dhamaade iminka priority oo koobaad waxa la siinaya waxa weeyaan waa badda marka waxa weeyaan qof walowba ku talagal dadka hantiilayaasha ah lacagta leh runtii Ilaahay wuxuu dhibayna waxaanu leenahay waar halkana xoolo qani yaalin macnaha waxa weeyaan ka soo qayb gala oo hantidiina inta aad bariis meel fog laga keenay ku baabiinaysaan waar halkana xoolo yaalin agtiini tan aanu dul taaganahay galo oo wax kala soo baxa halkan waxaan raali gelin ka siinayaa wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo madaxda gobolka oo ay cambaarayn iyo dhaleecayn korka kaga tuureen qaar ka mid ah bahweentayada kalluun leh oo qaldamay waxaan leeyahay wasiir xaal iyo bolotis baanu ka siinay raali gelin buuxdaanu ka siinay haddaan nahay bahweenta kalluunlaha Badmaal rag iyo dumarba shirkeenan jaraa'id waxa uu daaran yahay in aynu ka hadalno runtii intii ay iskaashatadu jirtay gurmadadii ay samaysay wixii ugu muhiimsanaa iyo waxa hor yaala ee ay doonayso iskaashatadu inay dhaqaajiso maadaama uu wasiir wasaaradda firfircoon loo soo magacaabay oo aad u shaqeynayo dadaal badan annaguna waxaanu jecelahay inaanu sidaa wasiirku u shaqeynayo firfircoonida badan ee ka muuqata iyo horumarinta dhaqaalaha buluuga ah ee maanta adduunka ku tartamaya oo isagu maanta doonaya inay la jaan qaadaan kalluunlaha Somaliland annaguna aanu ku garab taaganahay in aanu higsigayagu uu noqdo inaanu horumarinta kalluunka badqabka dadka badda galaya gaadiidka
dekadda meel waliba ay qurux badnaato aanu aada uga shaqayno weeyaan hadafkayagu haddii aan ku noqdo waxqabadkii ama gurmadkii aanu ka samaynay badda mushkiladihii ka dhacay intii u dambeysay sanadihii u dambeysay intii aanu guddi ahaan u shaqaynaynay iyo intii aanu iskaashito ahaan u shaqaynaynayba waxaa jirtay annagoo aan iskaashito ahayn oo guddi ahaan u shaqaynayna ayaa waxa ka caariyey meesha ruuhaya la yidhaha laashkaasoo ay lahayd shirkad la yidhaahdo online nimankaas oo aan hanti badan lahayn oo dee niman iska danyaroo jablayaalo ah laashkoodii markii uu caariyey gurmad bay u baahdeen laashkaa waxaa ku baxay $2,300 waxaanu ka qayb qaadanay annagu $1,200 baanu bixinay annagoo guddidii iskaashatada ah jeebkayga ka ururinay inta kale waxaa bixiyey nimankii doontu ay ka maqnayd wasaaraddu qayb bay ka qaadatay foosto shidaala 300 litir bay bixisay foosto shidaal iyo $300 bay wasaaraddu ay nagu gacan siisay aad baan ugu mahad celinaa aad baan ugu mahadsan tahay waxaa jirta hay'ad yar baa noo timid annagu intii aanu shaqaynaynay hay'adaas fow oo in badan la shaqaysa wasaaradda kalluumaysiga iyo Somalilandba hay'adaasi waxaanu ayna tiri soo qora dad 150 qof aanu qoray 50 kamid ah agab baanu siinay 25 dumar iyo 25 raga agab baanu siinay fishing gear iyo weelka wax lagu shiilay kalluunka lagu shiilay u kala qaybsan oo qaybta weelka kalluunka lagu shiilaano dumarka guddoonsiinay qaybtii kalena aanu ragga guddoonsiinay 100 qof ee noo qornaana ay noo harsan yihiin oo insha Allah bilahan soo socda aanu guddoonsiin doono wixii mashruuca yimaadey kaluulaha u yimaadana dee iyagun baa loo hayaa iyagun baana u yimaadeen iyagun baan u maqanahay waxaanu ka qayb galnay sidaa jaamac sheegay shirweynihii qaran ee wasiirku ku qabtay Hargeysa shirka dee wax kale lagama hadlayn dana siyaasadeedna lagama hadlayn olole iyo xusbina lagama hadlayn wax kale lagama hadlayn danta kalluunlaha iyo horumarinta kalluunlaha oo wasiirku juhdi badan gelinayo diyaar u yahay ayaa lagaga hadlay waxa weeye heerka aanu maanta taaganahay haddaanu nahay kalluumaysatada ama aanu nahay iskaashatada waxaan u malaynayaa inaanu hore noo soo marin harka aanu taaganahay baa ka koowa wasiirka wasaaradda kalluumaysiga badha saabka gobolka taliyayaasha maraniska maayirka gobolka si laxaadle oo buuxda ayay noogala qayb qaateen la'aantood haddii aanay iyaguna garab gelinna waxba noomay qabsoomeen waan uga mahad celinayaa waxaa jirta dhulka haddii dahab laga dhigo qaar baa dhalin dhulka haddii dahab laga dhigo dadka qaar baa dhalin loona wanaagu marinba indhaha caafimaadka qaba iyo qalbiga saliimkii madaxdeedii baa tiin way arkayaan waxa weeye ka xun iyo ka sanba idinkunbaa u madaxa qodob waxa weeye wax kalluunluuba la yaabay inta wasiireen ugu soo martay halkaa mid waxaanu waa shiriifka looga joogto oo manu ahaayo wuxuu yidhi waar baddayadaanu cunaynaa baddiina cuna mid kale 50 makiinadood buu na siiyey siilaayu noo keenay 25 boolkaa dhigtay warma dhigtay nin annaga ka mida buu iibi xabaddu iibiyo lacagtu u dira kaa iminka inaan ka bedelay albaabkayaga kama soo gelin albaabka wallaan uga soo gelin laba wasaarood baa noqon tii ma facalahayd ma buraaca waxaan la yaabran lahay wasiirka kan 17 jeer noo yimi maalin walba albaabka halka nooga soo gelaya eena kaxaynaya waxna tusaaya wax noo doonaya annagu waaba la yaabanahay